السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا أصحاب كحران دارليبان أكاديمي. Short story. Sheka Gavan. A bird in a hand is worth two in the bush. A bird in a hand is worth two in the bush. Shimbir aad gacanta ku hayso wuxuu ka qiimo badan yahay laba joogto baadiyaha. Ama miro gunti ku jiro ku geed saaran looma dash. A bird in a hand is worth two in the bush. Miro gunti ku jiro ku geed saaran looma dadsho. One day maalin a fisherman ninka kalluumaysataa went ayaa aaday for fishing inuu soo kalluumaysto to a river webiga as usual sida caadada ahayd. He guessed wuxuu daadiyay his net shabaqiisi into the river webiga and set waiting xoogaa waa u sugay for a fish to get into it ilaa uu kaga dhaca kalluun shabaqi. One day maalin a fisherman ninka kalluumaysataa went ayaa aaday for fishing inuu soo kalluumaysto to a river webiga as usual sida caadada ahayd. He guessed wuxuu daadiyay his net shabaqiisi into the river webiga and set waiting xoogaa waa u sugay for a fish to get into it ilaa uu kaga dhaca shabaqi kalluun. After same time isla waqtigiiba he drew up wuu ka soo saaray the net shabaqi and so wuxuu ku arkay a teeny fish malayer. He took the fish out malayga ayuu dibadda u soo saaray and put into his basket wuxuuna ku ritay dambiishiisii. After same time isla waqtigiiba he drew up wuu soo saaray the net shabaqi and so wuxuu ku arkay a teeny fish malayer. He took the fish out malayga ayuu dibadda u soo saaray and put wuxuuna ku ritay into his basket dambiishiisii. He was about to cast his net again mar kale ayuu haddana shabaqi daadsaday into the river webiga ayuu ku daadiyay when goorta the teeny fish malayga yarayna begged him uu asaga baryayo saa mudane fisherman ninkaada kalluumaysataa ahaw please fadlan put me back dib igu celi into the river webiga otherwise haddii kale I shall die waan dhimanayaa because maxaa yeelay I can't stay ma joogi karo without water biyo la'aan. I am very small aadna waan u yarahay and of a little use manaafacadeedana way yar tahay for you adigu way kugu yar tahay. And if you put me back haddii aad dib igu celisid into the river webiga I will grow big aad ayaan u weynaan doonaa and then kadibna you catch me again mar kale ayaa isoo qabsan doontaa and I shall be more useful to you manaafacadeedana aad ayay kugu badnaan doontaa. He was about to cast his net again mar kale ayuu shabaqi daadsaday into the river webiga ayuu ku daadiyay when goorta the teeny fish malayga yarayna begged him uu baryotomayo saa mudane fisherman ninkaada kalluumaysataa ahaw please fadlan put me back dib igu celi into the river webiga otherwise haddii kale I shall die waan dhimanayaa because maxaa yeelay I can't stay ma joogi karo without water biyo la'aan. I am very small aadaan u yarahay and of a little use manaafacadeedana aaday kugu yar tahay. And if you put me back laakiin haddii dib aad igu celisid into the river webiga I will grow big aad ayaan u weynaan doonaa and then kadibna you catch me again mar kale ayaa isoo qabsan doontaa and I shall be more useful to you manaafacadeedana aad ayay kugu badnaan doontaa. The fisherman ninkii kalluumaysataa ahaa said ayaa yidhi oh no alla maya once I have caught you mar haddaan ku qabtay how can I let you go see kugu fasaxaa because maxaa yeelay later mar kale I may never catch you again inaan dib dambe ku qaban ayaa dhici karta. I am not that foolish anigu doqonkaa maayihi. I will never let you go ma ku fasaxi doono even if xitaa haddii the Indian Ocean badweynta Hindiya taana ay isu bedesho into blood dhiig and I don't want ma rabo certain for something uncertain wax la hubo inaan u dayaco waxaan la hubin. Certain wax la hubo uncertain waxaan la hubin. Ilaan hadda wuxuu hubaa in uu malayan ha u yaraado ama ha u weynaado inuu gacanta ku hayo laakiin haddii dib ugu celiyo webigii dee ma ogaan karo inuu hadhow qabsan doonay in kale allahu aclam. Okay oo ku celina sida caadada noo ahayd ay isla soconno.
سجودان أو دلمر دونا a bird in a hand is worth two in the bush ميرو كنت كجرو كهو جيت سارة لو ما داتشو أما شمبر أتقعنت كويسو وحو كقيمة بدنيا هاي لما جوكتو باديها one day مالين أفيش مان نينك لو مستا وانت أيا آدي for fishing إنو سوكو لو مستو to the river وبيجا as usual سيدا عادة he guessed وحو داتسدي his net شبقيسي into the river وبيجا أيو كدادي and set waiting حوا وأسوغي for a fish to get into it إلا أكاقدع شبقي كالون at the same time سلا وقت جيبا he drew up وصوصاري the net شبقي and so وكواركي a teeny fish malaya he took the fish out malaya أيو دبادة وصوصاري and put حونو كوريتي into his basket دمبيشيسي he was about to cast his net again marka la ayu hadana damcay inuu daadsado shabaqi into the river wabiga when goorta the teeny fish malaya yarayna begged him oo broyotomayo saa mudane fisherman ninkaada kalluumaysta ahaw please fadlan put me back deep igu celi into the river wabiga otherwise hadii kale I shall die one dhimanaya because maxaa yeelay I can't stay ma ahaan karo without water biyo la'aan I am very small anigu aad ayaan u yarahay and of a little use manaafacadeedana adigu way kugu yartahay and if you put me back laakiin hadii dib aad igu celisid into the river wabiga I will grow big aad ayaan u weynaan doonaa and then kadibna you catch me again marka la ay soo qabsan doontaa and I shall be more useful to you manaafacadeedana aad ay kugu badnaan doontaa the fisherman ninkii kalluumaysata ahaa said ayayiri oh no Allah maya once I have caught you mar hadan ku qabtay how can I let you go sideen kugu fasaxa how can I let you go sideen kugu fasaxa because maxaa yeelay later goor dambe I may never catch you again inaan dib dambe ku qaban ayaa dhici karto I am not that foolish anigu doqonka maayi I will never let you go ma ku fasixi doono even if xitaa handii the Indian Ocean badweynta Hindiya taan ay soo bedesho into blood dhiig and I don't want marrawo setting for something and setting wax la hubo inaan u dayaco waxaanan la hubin وما سنتنا خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا نتبع حساب إن شاء الله